في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا، كم للعقول شرعنا أبواب المنى، مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا، لذنا به فتفتحت أذهاننا، يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا، لذنا به فتفتحت أذهاننا، يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب، ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا، أزف الفراق وظلنا بردائه، مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بتنا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن أو ونكسن داوديال إذا لهانتين دنيا ميل بواد كجوكتان كنا سود هذا برنامجكي سعودال كقولي أو تضبط والباي إذا كريم هذا تي في عالمي سومال ساد برنامج كان على أبو حايد السعودية نيجو عاد فتح حسين قولي برنامج كتضبط كان وحى مرتيجو wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xasan Nuur oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda. Xasan Nuur waxa uu kamid ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dhuljeexday saxaraha dheer ee u dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Liibiya, asigoo gaaray ugu dambeyn dalka Liibiya in muddaan halkaas uu ku xirnaa, kadibna uu dib ugu soo noqday magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda oo hadda halkaas uu ka shaqeysto. Ugu horreyn waan kugu soo dhaweynayaa Xasan Nuur barnaamijkeena socdaalka golay iyo sida aad u aragto. Bismillahirrahmanirrahim. Waqti socdaalka golay aadan kaga mahad celinayaa, ayadoo aad muhiim u tahay inaad Afrika soo gaarto. muddo badan la raadinayay dad badan oo socdaalkooda oo kale ku raadiyo Afrika inay ku yimaadeen. Waan ku mahadsantahay barnaamijkaada sharafta leh. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xasan. runtii waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii Soomaaliyeed ee u tahriibtay dalka Liibiya. runtii waxaad martay dalal fara badan oo ay ka mid tahay dalka Suudaan. waxaa laga yaabaa inaad la soo kulantay dhibaatooyin fara badan hadday ahayd xarig ama dhac. ugu horreyn safarka ay ku aadanaa tagitaanka dalka Suudaan sidoo ahaa maxaa kugu dhaliyay inaad tahriibto? wallahi safarkii ugu horreeyay horta xilli hore wahay ana baxay 2008 waxaan igu kalifay darafo badan awgeed, sidaas darteed dhalinyaro badan oo saxaabtayda ah ama aan jeclahay ayaa in badan meesha ku safartay. saas darteed anina waxaan damcay inaan dhankayga ka safro
waan gartay markii aad go'aansatay in aad u tahriibto dalalkaasi Yurub si aad u hesho nolol ka duwantii aad kala kulantay qaaraddan Afrika markii aad gaartay dalka Suudaan ugu horeen safarkaagii ku aadanaa tegitaanka Suudaan sidoo ahaa wallahi yarta alxamdulillah safarkii aan maray inta soo safarada ay adkaayeen oo dad badan ay ku rafaadeen dad badan oo Ilaahay u fududeeyay alxamdulillah Ilaahay waqti baa tahay garan safarkii aan malaaniya markii aan u socdaalay Suudaan dadka muddo badan ay ku jireen wadada marna way soo laaban jireen marna xabsi ay geli jireen laakiin alxamdulillah Ilaahay waxa soo dhanay markaasi inta soo qora waxaan ku maray 7 maalin oo Ilaahay uu fududeeyay waan gartay todobada maalmood waxaad ula jeedaa miyaa safarkaaga marka laga bilaabo dalkan Uganda ilaa iyo Suudaan ayaad u socotay 7 cisho waa sidaas todobadaas cisho maxaad saarnad diyaaradaad ku baxday mise waxaad raacday gaari mise lug ayaad ku martay wallahi diyaarad yani dukumiintaan ku raacamaan haysan meeshaan xaaladeeda iska agteed oo lagu maray dhexadka yani dhibaatadiisa iska badnay marka dhuumashaalahan ba ku galnaba يعني نقول بشيء فلسطين أنا قليل أو كمبالا نقولين صدقت واحد أو ديارة غيرات يعني كبحنا هجران كم كبحنا يعني داري عم كبحنا أنت آت مريسين وضدا حتى أودحية دالكان يوغندا إيو السودان ملك كلنتين واحد يردل أم حرقة مايا أنت ولا ما قلنا إنك صدقت بدنا إلى كل مدينة ضد بدنا للسعودية ضد بدنا ماشي بوحدة alhamdulillah wax dhibaato kala ma kulmin waan gartay markii aad tagtay dalka Suudaan yaa halkaas kugu sugayay oo halkaas kugu soo dhaweeyay markii aad halkaas tagtay kugu soo dhashtay qorshe ah in aad safarkaaga tahriibka aad joojiso oo aad ka mid noqoto ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaas Suudaan kuma soo dhalinaa qorsheyga joojiyo safarkayga ayaa baahay in ay yani qorsheyga aan ka miro dhaliyo صدقت dad badan oo soo dhaweeyo asxaabteyda ah ayaa jiro oo jaamacad meesha ka dhiganay sida jaamacadda Afriqiya rakalo ay kana meesha jooga jiro oo muqallasiin ah oo ay kana isgaranaynay ragaasana meesha uu soo dhaweeyay aniga oo ugu horeeyay waan gartay markii aad tagtay magaalada Khartoum xarunta dalkaasi Suudaan oo aad go'aanstay kadib inaad u sii hayaanto dalka Liibiya waxaa la marayaa safar aad u dheer oo u dhaxeeya nolol iyo geeri waxaa la marayaa saxara aan kaaga horeyn baad iyo biyo saxara aan dad ehelay waxba aan kaaga horeyn naftaada ay halis u tahay haddii aadan gaajo u dhimana sida wararka qaar ay sheegaan halka ay ku jiraan dad tuuga safarkaaga waxaad inooga sheekaysaa ku aadanaa Suudaan ilaa Liibiya imse Soomaali ayaad aheedeen meeqa qofood ay idinka geeriyootay intaad ku guda jirteen safarkiina ku aadanaa tegitaanka dalka Liibiya وما سنت قولي أنا كلام ما أدري أنا برد على ونفسن تصنع مهم أيه تاينا مر بدن أنا همي أنا كابو رامش كاس ومدار راجناي صدقت سفر كي ولد كبرناي أو عمره سفر كسيوا هاي هدي أنا واحد كذا كابو وكمر كي وريو أسف بينا وحكو بحناي جاروي أيضا نقول بلمي إن جاري راحو بحنا سحرة حكو markuu hore qayaanada halkaas inoo bilaaway gaariga weyn markii nagu la qaaday adiga muddo 2 maalin si soconay waxaana la geeyay meel yani adiga doox weyn oo biyo mareen agteedana la geeyay oo saxarahan intaan toos loo gelinaa saas darteed meeshii horta caqabad weyn aan kala kulannay oo hadda waxaan ugu lahaayay muddo ku dhow 5 maalin muddadaas ugu lahaayay waxa la wixii aan saataysanay horta meeshii aan ku dhamaynay waxa la wixii qarash nagala qaaday jira nagala qaadan kara markaas oo yani shufto aan la wadaana ka meesha dhaxnoo gashay naga qaadan kartay markaas oo naga qaaday waan gartay intii aadan hadalka sii dhammaystirin waxaan rabay inaan ka dhaxgalo tuugada idin gashay wadada waxay ahaayeen dad Suudaan ah soo waxay ka soo jeedeen dalkaas Liibiya muddo intee leeg ay idin haysteen tuugadaas
هذا وحياه دad muwaadiniin oo Suudaanis ay hayaan oo wadanka u dhashay oo meesha degan oo deegaanku ah kulay area ma kala garanaynin sastarteed ma haynin Libyaan mana noo dhaweyn Libyaan marka waan gartay safarkiinaas isku dar dhamaan imisa qof wada dhaxeeyo safarkaas markii adiga dhowr cisho meesha nagu lahaayay waxaan haysana nagala qaatay ayaa 3 gaari oo kale oo yar yar dadkoodii meesha nagu la keenay meesha markii nagu la keenay laba loori ayaa nagu la soo qaaday oo nagu la soo rogay intii meesha hore u joogtay intii gadaal laga keenay markii labadii loori nagu la soo gidiyay waxaana la keenay meel yiraahdo kala wareega ama yani baabuurta Liibiyaanka iyo baabuurta Suudaaniska ay ku kala wareegaan meeshaas markii la keenay كده waxaa dhacday in niman markaas Suudaanis ah iyo niman Liibiyaan ay noo heshiiyaan ayadoo noola diyaariyay gawaari waaweyn oo leeyihiin Liibiyaan anagana aan filayno gawaari yar yar sida noogu la sheekay saas darteed meeshan dhicin ilaa markiis waxay noqotay nimankii Suudaaniska oo markaas hadana lagu wareejinaa nimankii Liibiyaanka inay yiraahdeen من كستر العقد بقدر إنه وسكانه يعني جاري على إنسانه وعبد بلا عبد بلا ماشي عن كفيلنا إنه أو العقد عن سكبر بنا أنت ده مركز هلك كراي أيوة وحنا لغاته وحلا على وحنا مركز أهلك كرنو سد هاي أو العقد هاي هلك أصلا وحن هي سنة هواي راته ملهن أو سد كي هي سنة وعن كسر دماني أنت سنت مال نلصايسته ayada caqabadaad ee oran oo haysatay hadana nagula shaqeeyaanay oo aan wali yiri waxa la saaraa gaari yar oo Cabdi Bila ah inta markaas lacag haysato lacagtii aan nagala burbistay waxay noqotay in afar Cabdi Bila rarkoodi oo badan oo gaarayaan dadkii adiga cadadkooda 200 iyo 5 qofood ama 206 qofood meelahaas in hal loori nagu soo rogo oo qul nagu la saaro intaan diidi maadna qul in nagu la saaray noqotay dhibaatadii ugu waxaad meeshaas kala kulmaa waan gartay xasan aad iyo aad u mahadsan tahay runtii sida aad sheegtay dadkii la tirada waxa ay gaaraysay ku dhawaad ilaa iyo 200 in ka badan intaas oo idil waxaad ahaydeen Soomaali kaliya mise waxa jiray ajnabi dalal kala oo idin la socday intaas oo dad Soomaali kale ma aysan ahaynin waxaan ugu jiraa ajaanib kale sida Eritreanka kale oo 70 ruux ku dhawaad ahay Suudaanis kale oo 60 ruux kale ku dhawaad ahay waxaa kaloo nagu jiray Bangladesh oo adiga 2 ruux ma 3 ruux meelahaas marka intaas aan ahayn waan gartay wadada mashruuciisa ayaa ku jirteen intii safarkiina aad ku jirteen imsa qofooda idinka geeriyay wallahi horta runta inta aan xasuusto anay raayahantayda muddo badan ayaan moogaay xusuustina way u baaday laakiin se markii ugu horeeyay oo baaburkaas uu nagu la rogay horta galabtii ugu horeysay waxaan uga dhimatay 3 qofood oo Soomaaliya waan gartay 3 qofood waxay ahaayeen wiilal mise gabdho wiilal هاي كدب سفر كوا وصل كدب سفر كنا واسي وضعناي كدب هذانا واحد انتي يركلوا قعم إلى دهايو يركلوا أسيون إلى هون حدث تلي راهو مقعيس هذا مشي كرا لكن قعم ينكحسوستا يركل أصلا وضع صادم تلي قلبتاس يركل لكن مشي شيء كرا لاسمه دافعني ماشي وانقط مركي أي جريودين سدح قفوض إلى السعودين ما ماشي كواستر مسميت كل واحد ما يمشي وصل ساعتين قارب كوي 8 ساعة ويستاهل جريء خليهاس كوي 8 ساعة قارب يستاهل خليهاس أنا كنا من بينه خليهاس مقطوع عاصي قارب أنا في الشخصيات كان جاي على نفس الديدة وماشي أنا عامل ويقصر كعين جريء بلس وحاسة يدك كنا لا سعودي يدك مركز تبرت الهاي ومركز عقا الرجل وجوبي هاي markii ay geeriyoodeen 3 qofood oo idinku helinay safarkiina dareenkaaga sidoo noqday maxaa si kugu dhashaaday
والله رونا أنت درنكي وسبدلي درنكي قاعدوا وين وسبدلي على دنا إني حنت عوان درمي بس هذا ما كان يجيبونه يعني إله أنت هلا صارتي الحمد لله سفر كان إله ونفوذ أنت نقصار saddexda qofood markay geeriyootay kadib waa safarkiina aad sii wadateen ma dad kale idin ka sii geeriyooday mise saddexda kaliya ahaayeen dadka dhintay هذه ويران ترى مركز عددها لسكول دارو dadka adiga waxay gaaraan 6 qofood meelaha ay gaaraan kadib hadana waxaan naga geeriyooday yar kale waa asagana xilliga markaas dhibay inaan guli qabnay ay geeriyooday ayaa jira asagana oo doonaha asagana Cabdullaahi inuu dhahay magciisa aan jeclahay حسن dhalinyarada qaar waxay sheegaan galitaanka dalka Liibiya inaysan ahayn mid sahlaneyn oo runtii ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan ama xarig ama degdel ama dadka qaarkood ba in lagu sii daayo lacag madax furasho markii aad gudbayseen xadka u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya oo gudaha u galaysay dalka Liibiya sidoo ahaa safarkaas wallahi safarkii ugu yaabka badnaa waxay habeenkii xadka Liibiya la galshay horta habeen maqribeed waxaana nala wareegay rag Falastiin oo markaas dadka madax furasho ka qaato meeshii waxay noo keeneen rooti iyo cabitaan yar waa habeenkii ugu yaabka badnaa waxaan afkay galay aan la qawaay habeenkii saas darteed xaafadoodina geeyeen xaafadooda markii geeyeen guriga geeyeen guriga beer ku taalo timir iyo adduunka yaalina geeyeen guriga markaas oo soo ronaanay ayay telefoon noo keeneen waxay nagu yireen eheladiina la xiriira oo nin kasta waxaan ka rabnaa lacag intaas madax furasho 350 ahayd iyo 10 oo yani markaas lacagta rasiidka lagu shubaayo ama kaarka lagu shubaayo telefoonka ay naga qaatay waan gartay kadib waxaad bilowdeen inaad la xiriirtaan familkiina si ay idinku soo diraan lacag marka lacagta qaabci ka idin soo marsiinayaan lacagta waa tii ugu yaabka badneed oo xitaa waalidkii iyo yani anaga aan isku aamin weynay ayay ahayd lacagta waxaa lagu soo dirayay nin Suudaanis ah oo waxaa joogo Suudaan Khartoum ayaga dhahayeen yani shirkadaas noola soo dhigo shirkadda markii loo soo dhigo ninka Suudaaniska magaciisa lagu soo qoraa soo diraha magaca markaas oo qofka soo diraya lacagtana waxa laga dhigaa shakhsiga markaas meesha joogo ama adiga nafsad ahaan meesha joogtid ayaa lagu soo qoraa wax waalid isku soo qorayaan lacagta saas darteed wax tiin ugu yaab badneed oo aragna taas ka mid lacagta la soo marsiinay dalka Suudaan sidee ay u xiriirayeen familkiina iyo dadkan Suudaan ay ku sugan Khartoum familka ay dadka Khartoum wax shaqo la weerartay isku malahan ninka meesha ugu haysto iyo ninka Khartoum joog ayaa xiriir laayeen lacagta Liibiya gudaheeda looma soo dhigay loo soo dhigaa Khartoum waxaana lagu soo qoraa nin Suudaanis ah magacaas oo dirahana waxa laga dhigayaa magacaada oo adiga shakhsiyan meesha joogtid meesha ugu xareysan marka aan ka dhaxgal xasan ila hadda waxaan fahmilahay marka lacagta loo soo diro qofka jooga Suudaan sidee ay ula soo xiriirayeen eelkaagi ama telefoonki sidee loo helay qofka lacagta qaadana eelka waxba la soo xiriirayaan ninka mukhallaska ah ayaa soo wacayo ninka kale oo Khartoum joogo markuu soo wacayo wuxuu ku leeyahay lacagtaas ugu soo qoran ma taala shirkadda oo ninka lagu soo diraayo ayaaba meesha shirkadda u fadhiyo lacagtaas way ii taala oo way soo gaartay oo leeyahay oo hebel ku qoran yahay saas darteed marka asaga magaciisa ka qoranaya lacagta qof allaala waxa la soo wacaya caawidii oo kale la soo wacaya waxa la hayaa inta soo dada lacagtoodan ku haya magacyadooda weydii magacyada laga saxaya habeenkaas markaas si wadanaysa lagu qaadi marka markii idin sii daayaan ama lacagta ay helaan oo idin yiraahdaan fasax ayaatiin متين دت كلا يقانا ودلكي وحكي دت عصب ودكي سيدا يا بوسي دلكين هالكاسي مرتبة ورك لا لو قادايا أيه كانوا قادايا وعينك هو رجينا يان رك الله مركز أيه كان إسلا شغستان هم خلاصين كاره
كده بعدين رجي كلو لو جي أسجن العقل كلو كاسي دلبنا يا سيدي نين كان أود دلبضو كله أسجن وعوق وارنا يعني العقد تاسين تاسي تساو باناي تلفون كان أو كادل العقد تاسي دلب waan gartay markii aad dhibaatadan ka soo badbaadeen oo reerka lacag ay soo direen oo halkaas Ingiriisi daam waxa la sii kulanteen qolooyin la mid ah qolooyinka hadda Ingiriisi daayay ha qolooyinkaas oo inta badan qolooyinkaas oo kale ay ku wareejinayaan markii ku wareejinayaan wadif qaliil ayako yani meesha kula soo heshiis ku geeyaan wada ma qayana badan marka safarkiina sidoo ay idinka ma waxa la kulanteen qolooyinkan tuugada lagu wareejinay isoo waxa la kulanteen dad wanaagsan oo safarkiina si toosan idin siiyay wallahi horta wala kulanay wala kale nagu soo wareejiyeen laakiin qolada kale wax sameeyna meeshan naga sii qaadan lacag rabay naga qaateen ayakana waxay nagu sii wareejiyeen caasimad kale nagu daadiyeen oo Bangaasi la yiraahdo wilideeda la galaayo afaafka la galaayo saasa magaalada ku galnay waan gartay markii aad tagteen magaalada Bangaasi ee dalkaasi Liibiya maxaad kala kulanteen yaa saalkaasi kugu soo dhaweeyay waxyaabaha kuugu yaa ku badnaa aad kala kulanteen Bangaasi maxay ahayd والله يرد بقاسي واحد باتاك كلام كل من وعنا نقص دوية رد مركز مستقبل ما يشوف لي ولا يرجع مقعد موضع عصوسته لكن ولا هذا وحكم عصوسته بس يرجع سان وصل دوية ماشي عن كعصوسته ومقاس وصل دوية وكلام الدنيا وحي كده بين العقد ماشي أنا وصل حوالي واحد باتانا لما dadka dhalinyarada qaar ee maray dalkaas Liibiya waxa ay sheegaan in dalka Liibiya dadka shacabka oo dhashay inay dad Muslimiin ah oo dhibaatooyin far badan ay u geystaan dadka muhaajiriinta waxa kaloo jira dad badan oo lagu dhex galay suuqyada ku yaala dalkaas Liibiya adiga intii aad ku sugnayd gudaha dalka Liibiya waxyaabaha la sheegay ma la kulantay wallahi horta ilaahay nimcadiis intaas oo dhibaato ah oo aan maray lama kulmin wax dhibaato oo saas u sii weyn oo ama suuq aan kala kulmay ama wax jirdil ay geest balse yani dadkaas waxay qabeen aan la qabay oo dadkaas isku meel joogo marka dad badan tiina kulay wax badan la kulmaysiin marna dhibaato la kulmaysiin marna alxamdulillah waa badbaadaysiin balse marka gudaha u galay alxamdulillah wax dhibaato ay aweeraatay lama kulmin aniga waa gartay markii aad gudaha u galaysay dalka Liibiya sanadkaay waxaan galay 2008 bishii sagaalaad dhexdeedii ayadoo soo qaad 6 oo marayaan waan gartay kadib waxaad bilowday safarkaaga ku aadanaa inaad dhex jexdo badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalka Malta iyo Italy iyo dalkaasi Liibiya safarkii kugu horeeyay ee aad gashay badda ee ku aadanaa tegitaanka qaaradda Yurub sidoo ahaa maxaa kala kulantay والله يرد سفر كاس وسفر كي أسجن مركز وسكدب لهاي بس وحلا شيء هذا ملهان وعوها أسجن بيشي سجالات دواتني تدري دي أيام سفري اللي جالس أيام بدأ فلنا بدأ مركز فلنا يعني دونتي على صعني أيام الله ذي صدرت رجي نوودي أحمد إيرليران نوودي اللي جالس أحمد فنح سنجع على مدرسة ونقود نوعي dadkii wada cabaaday way wada qalqaleen doontii oo markaas naga halawday dib aan loo soo celiyay dib markaan loo soo celiyay xabtayna keeda doontii xabti markayna keentay niman masaariyo nala saarnaa xitaa doontii way gubeen waxana qadartiis ay ugu naqo waayeen wadanka Liibiya oo naceen marka alxamdulillah maalintaas wax xabsi amaana gelin gobolka ugu xun ay nagala soo xirtay doonta oo markii horena uu nagu la xareeyay magaaladii aan soo dhax marnay gobol Seleton la yiraahdo alxamdulillah wax dhibaataan ku markin caasimadan soo laaban marxaba waan gartay markii aad ku soo laabateen caasimada adigoo soo arkay dhibaatada ay leedahay tahriibka ama dhibaatada ay leedahay badda oo la raacay doon aad u yar dadkina tiradooda aad ugu badan yihiin maxaa kugu dhashay kadib in safarkaaga aad u sameeyay kugu dhashay inaad mar kale try gareyso aad safarka ku noqoto wallahi horta kale waa maasan tahay tan kale waa niyadda soo gelin waxay aad inaan safarkayga aan joojin oo safarkayga sidii aan ku sii aan qaadi lahay oo aan ku heli lahay nolosha nolol ka duwan
ayuuba ahaybu saas darteed ma joojinin safarkayga oo mar kale ayay noqotay inaan eheladiida intaa la xiriiro aan waalidkayga aan wax ka dalbado lacag kale lacagihii kale oon dalbado haddana ay noqoto markaas inaan doon ku sii shubto doon lacag ku shubto waan gartay haddana waxaad taragalaysay ama aad isku dayday safar kale inaad marto oo ah badda safar kaloo badda inaan maraa isku dayay saas darteed safarkii kaloo badda waan shubtay waana galay baddii mar allaala markaan galay ayadana doontii markaan 7 saacadood badda kusii jirnay doontii kale ayadana halawday ayadoo halaysan ayaa waxaan la kulanay markab Liibiyaan xilligaas aan markab Liibiyaanka la kulanay xilli galabay ahayd markabkii Liibiyaanka ay markuu gacanta nagu dhigay asagana soo hagay dhanka Liibiya noo soo hagay oo nagu soo celshay anagu soo hagamo xamo wuxuu noo sii diyaariyay markaas ciidankiina qabanay ama shurdadii markaas u shaqeynaysa dawladda saas darteed badda saan markaa ugu soo deganay meesha geedageeday lahayd waa lagu kala yaacay alxamdulilah xilli dambe 9 saac habeenimo ayadoo la joogo ayaan islaahay xilligaan markaa sangeed ugu dhex jiray oo isku dhamaatay askartii waa la kala weyday aniga islaahay ayaan banaanka soo baxay dhanka laamiga markaan soo baxay xilligan baabuurkii shurdada iska fiirinayo baabuurkii shurdada inta iska fiirinayo waxa lagu qabto baabuur oo markaas haydiyad lagu adeegto oo markaas loo soo qaado beerta qudaarta waa la qabtay isla markaas waxaan galay xabsigaan galay waxaan ku jiray muddo markaas dhan adiga 4 bilood iyo 27 casho afarta bilood aan iraahday iyo 22 casho ku jirtay xabsiga maxkamadda kugu xukuntay mise adigoo bilaa maxkamadda lagu hay xabsiyada Liibiya wax maxkamadda kama jiraan mana lagu xukumo haday jiraan waa xabsiyo markaas muwaadiniinta lagu xukumayo oo qof oo ajnabi ah wax maxkamadda ma xukumayso inta badan hadii la xukumo xabsiyada xukunka waa laga bixi karaa wax weyn maaha tan laakiin waa mid oo lacag lagu gato dadka waan gartay waxaad ka wartaa gudaha xabsiga sidoo ahaa qolkii imisa qofood ku xirnaadeen xagga cunada samxeedii sii jireen والله عنا ده واسكا وحيس واسكا دبناد waxa ugu xun xabsiyada cunada laga cuno inka soo xabsiga saan ku jiray mudada saan ku jiray alxamdulillah yani markaas waxa aysan iga alaabin TV noo lahay telefoon noo lahay xabsiyada qaar oo karoonay waan gartay markii aad dhameystay mudada xariga ahayd oo aad xabsiga ka soo baxday oo aad dib ugu soo noqotay magaalada xuriyada dib aad u heshay maxaa go'aansatay waxaan go'aansaday in safarkayga saan ku sii wadan lahay mar labaad mar saddexaad aan dib u sii wato saas darteed imaysa suurta gelin safarkayga waan qaabsaday waana diyaarsaday mar allaala markii aan damacnay safarka ugu dambeeyay 7 bilood ayaan magaalada joogay caasimadda todobadaas markaan joogay isla bishii 8 markaan damcayna safarka galo safarka ayaan isku diyaariyay lacagtii ma shubanay xilligaas doon baan noola xareeyay doonta markii noola xareeyay muddo adiga 3 maalmood xareysnayn badda nala saari maagay badda markii nala saari maagay suurtagal weysay oo waa ciidan aan oo galay badda xigta doontii markaan yani in la saaro la damacsanay hadii habeenkaas geedaan ku yeelnay waa la kala cararay wixii la qaban karana waa la qabtay qoladii fakataan soo galay ilaa markii habeenka oo mar saddexaad ayaad ka badbaaday inaad xabsi gasho markii aad ka soo baxsatay kadib ayay safarkaaga sidoo ahaa waan ka soo baxsaday magaalada markay imaadeen ragii mukhalasiinta waxay yiraahdeen lacag la celin maayo doonka la idin diyaarsan diyaar noqdo safar diyaar u noqda hal isbuuc markaa meeshii joogna haddana waxay noqotay in markaas safarka la ku sii noqono safarka markaan diyaar ku sii noqonay mar allaano markii aan damacnaa haddana badda in la saaro ayaa askar qabatay
askartii markay qabatay xabsi la yiraahdo Kaarambule aan ugu xiray saas darteed muddo isbuuc aan ugu lahay xabsigaas lacag baan rabnay inta badan inaan uga baxno maana nooladaas xabsi kale xunaan noola xawilay xabsigaas markii noola xawilay xabsigaas yani waa xabsiga ugu xumaay oo soo maro nolosheeda in badan oo Soomaaliyeed kulay aan isku xirnaynay rag badan oo reer Muqdisho iyo reer Soomaaliland oo aanan hilmaami karin saas darteed xabsigaas waxaan ku jiray muddo 10 bilood ah waan gartay 10 bilood runtii waa waqti fog intii aad xabsiga gudaha ku jirtay ma jireen dad dhalinyaro ah ama intii kugu groupkeed oo ku geeriyooday xabsiga dhexdiisa rag badan ku geeriyooday waxaan ka aqoonay yar la yiraahdo qalin leh oo xilli horena doonaan isla raacnay xilli dambena aan xabsiga isku aragnay waxaa kaloo kamid ah xabsiga iska dhib badnaay waa xabsiga uu yaab ka badnaay oo $100 xataa habad kaliya aad gaartay xitaa aan lagu soo gadayno afka lagu dhifanaay waan gartay dadkaas ma waxay u dhinteen ama ay u geeriyoodeen caafimaad la'aan ama cunno la'aan maxay u dhinteen dadkaas waxay u geeriyoodeen caafimaad darro iyo cunno la'aan intaba way isugu jiraan labadaba waana muusan lahayn caafimaadna muusan lahayn xabsiga waan gartay markii aad muddada 10 bilood aad ku jirtay ma lacagaad ku soo baxday mise dawladda iska soo geysay lacag kuma soo bixin dawladda ay faa'iido soo fiisay markii dambe هذا ترى تطلع عن قبحة وبالوجودي لا هذا الشيء هذا دوينيسا waan gartay runtii xasna waxa tahay qof runtii safar dheer soo galay oo aad ugu soo jaway kadib markii aad ka soo baxday xabsigii oo aad banaanka u soo baxday maxaa kugu dhashay maxaa fikir ah oo runtii xabsigan waxa uu ka daran yahay xabsiyada kale aad hore u soo martay runtii waa waqti dheer sanadkii waxa ka haray muddo 2 bilood kadib maxaa kugu dhashay markii aad banaanka ugu soo baxday xabsiga والله وعن فيلا ويورتا قلبتي عقدي كسو بحاي ومقعي قال لي شيء وانا من واي صدرت انا جو انت برنامج اللي يسو ساري اللي دحايو انت كبح غاري راع تا يا ان لا هدانا من الله وان لا يابناي انك سو سفر بدن سو غلay واي مو فيلن ان بي حبسيات يعني دغدغ aan uga baxayo dibaatada ana kala kulanay dibaatadii ugu xumeed waxay ahayd xabsigaas jibdin noola geystay oo si xun noola dili jiray maalintii uu noogu yaabanayd annaka waa 40 qofood gaarayno oo dukanayno ayaa waxaa noo soo galeen askartii markaas waardiyeynaysa xabsiga darteed maalintaas waxaana dushinayay yar la yiraahdo Axmed Quslaaye galab casriyeed salaadii inta lagu jiro jamaacada وانا من كي سوق وين حتى إلا أن جماعة كفارقنا أما أن كبرنا نيجي إمام كي هاي عم قص لاي أي سان إنت الله سوق بتاع نقول سوق لا توري تحدينا نقول سوق ردي أنا كنا برتي وأول نقول بلاد يبود إذن كوصلات يوتاعي أنا كوصلات يوتاعي هذا نما كاس وانا من كي روح ما مركز أنا وان قرتي رنتي وواحد لا يا وحن كنت الماما أنقرون واي waan gartay kadib markii aad banaanka u soo baxday oo ay maxkamadda cafis ku soo fadisay dawladda maxaa go'aansatay qorshahaaga muxuu noqday maxkamadda waxay siisay yani sharciyo yar yar oo markaas 3 bilood oo aan ku joogi karno ama aan uga baxayno qofka sana shakhsiyan kulli waalid uu leeyahay iyo walaal iyo wax la dhashay saas darteed waxaan go'aansaday yani waalidkii aan laaday waalidkii markaan laaday waxay ugu yiraahdeen isaga soo laabo meesha muddo badan ayaa hadalkaada weynay meeshana calafkaada meesha noqon inaan ka baxdo dhibaatadaas awgeed ayaan uga laabtay oo soo laabtay aniga waan gartay runtii adigoo og soo laabashada xataa inay tahay safar geeri iyo nolol u dhaxaysa oo runtii aad soo marayso wadadii markii hore aad martay oo aad ogtahay ama aad ka mid ahay raggii aasay dad asxaabtaada ah oo kula socday safarkaasi sidoo ahaa maxaase kala kulantay wallahi safarkii ugu dambeeyay ayaa ii dheeraaybo marala furlan soo baxay safarka meeshii hore aan marana soo marin hadda wadamo kala soo maray sida wadanka la yiraahdo Niger iyo Chad wadankan Darfur ka soo galay magaalada Khartoum
سفر كاسمر كاسون قنيسي دول كاد كوسون قطي دول كاد كوسون قطي مدد كلا الصومالي كل السعوديين أما أجنبي كلام سكريا سفر كيكوين والله ويل بدن تدبو ويل غيران تدبو ويل أنا هنا يردار مختار على إيران كحسوستا يا رج دكتور كنين إيران رج بدن أنا إني حلقة أساس كسل سؤال أنا عايك أنا ودك جادا لكن كوكلا هرمي وأن قرتي أنت سفر كوا أدنى سو نقشة مجالات كمبالا مالك منطقة وحرك كلا أما كرتلو بيسبب واحد بدن أيام لسه كل ماي ودك جادا وعن كلا سو كل ماي يعني لعبتي ما لي وصح ولا لواي ودك عمو حيرنا هذا كل يبار واحد كلا أدنى دلوقتي بدن كلا سو كل ماي مركي أنا خرطوم كسبعي ودن كان سود سودان سودلاي وأيضا نقول نقطة إن قبلة النحر أنا إمادة ودك تحتيسا قبلة أو سود سودان سدا أويل ملي راو ولا قبتي أنا يركلو خطبس كلا صباحنا إيش اللي هو حرام تلفونات نوغلا قاتو لعق نوغلا قاتو كده بعد نديب نقول عليه أنا كواحد سنين وميلا عندنا كلا حريرنا تلفنا هاي سنة وإحنا هاي سنة نمبرنا هاي سنة وكنا قنادنا خرطوم مرة لبان مدين تلاقي كل كاس حبيني مالنا كعرناي كديب واحد ديب وهو نقطة مقالة خرطوم كديب خرطوم أنا أقول عرش أي سفر كينان إن كوادن إما شاه كمبالا أورنتي أتكلم كنتي دواتوين فربدن محد كفكرتي إن سيجوكتو إن مقالة خرطوم كفكرتي أمو حكاغو نتكلي إن سوقت مقالة كمبالا مرنا بكم فكر إن خرطوم سيجوكو وهدف كيجا سفر كأيا بهاي بكمبالا ناي ماذا صدقت دايان هو هكذا واي ماشيس كديب محد كذا صباح لي خرطوم كديب خرطوم ودي أنا مركب استعماله معنا وده كلام سو استعماله ملكان مثل يراه أو بدأ دون لصور عايو دون تيادنا صور عاي هذه سدح حبيني سدح مالنا صوّا ده جبان كسوديني ماله بور هو ده جبل بور مال يراه جبوا ده كسوديني سسايم كوي ماله كديب مركز سوق قارتين مقالة كمبالا محد سوق الشيء جب مركز سوق قارة شرعي مركز ماشي كشغينا أي أو سو سودان استعمال أي نايان جرنا أي سسايم كسوق على كمبالا وأنا كفتي حسن واحد هيقف ويا أرس فربنا سوق علي فربنا سوق مي حسين فربنا سوق أبكي دفعت تجيرون الصحراء لمرنا سوق ما واحد تستطيع غير فربنا وكان سائل وتهريبا وتكلم يدو ما تحاضري بيا أي كسي درت هيسير حد كل تردار بس ولا يرتع ماشي عادي قاعد يكون قاعد تاعي إيش هذي كوفي مرة يكون هذا التاي وحول برتعلى فواي على فانا صدرت درت وطن كاس عني ومركز السوق عندي كرمين لساس لو قلنا ماي مع هذا لا هذا والله وحن كشري وحن قوان عندنا كرمين بس وحن كجعل هاي نسكت جوان في مركز هذه لا ساعدنا هاي الشيء مسيبه داود يا روح عن سوق النيكوتي داودي برنامج السعودية الكولي وطلعت كان يسنتو ساير كريم يعني مقالة البالة هي حروف الكلمة برنامج كتلوات كان واحد مكتوب حسنور وحيد لسه سيدا يعني بعد فتح السيد كولي حاجة صور قايسة وساحب كي حالة انت البرنامج كان برنامج لم يدعم كل دون وحنا قلت لك سيدا يعني وتقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة
ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا، كم للعقول شرعنا أبواب المنى، مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا، يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا، يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا، أزف الفراق أظلنا بردائه، مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بتنا على